munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa dabaaldega xuska maalinta 1 Luulyo ee xurnimada dalka Soomaaliya iyo hambaliyada doorashadii maamulka Galmudug loogu doortay madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tan London ee dalkan Ingiriiska. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, waxgarad, odayaal, haween iyo fanaaniin. Waxaa dadkii halkaasi ka hadlay ay si aad uga faalloodeen dhibta loo soo maray xurriyadda calanka Soomaaliya. sidoo kale munaasabadan ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay maamulka cusub ee dhawaan gobolada dhexe madaxweynaha loogu doortay mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed. waxa ayna ugu duceeyeen in Ilaahay u fududeeyo mas'uuliyadda uu qaaday shacabka deega gobolada dhexe. inta aynu noolnahay haddaynu xasuusano maalintaas qiimaha ay leedahay, xurriyaddu qiimaha ay leedahay, dhiigga loo soo daadiyay, daraawiishtii 25 sano u dagaalamayeen in ay dalkeena u isticmaal ka baxo. waxaan leeyahay 26 Juun 1 Luulyo toddobaadka gobonimada intuba ha noqdaan ha guuleystaan Soomaalidu ha midowdo ha israacdo. waxaan gadaal ka raacinayaa maamulka la tilmaamay ee ilbaxnimada iyo wax isku quuridda iyo shisheeye la'aanta iyo kalsoonida iyo mudnaanta madaxweynihiisa maanta la soo gabagabeeyay gudoomiyihiisa barnaamijkii hore ahaa. waxaan leenahay hambaliyo iyo duco iyo kii Soomaalida anfaca. madaxweynihii dawlad goboleedka ee Galmudug madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa madaxweyne loo doortay. waan u hambaliyeynaynaa, waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu noqdo madaxweynihii guul u horseeda ee gobolada dhexe. calankan waxaan leeyahay hambaliyo nimankaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug State, gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenka wasiirada, soo abaabulayaasha cadaado oo maarta koobka adduunka qaaday. caaw waxa halkan la isugu yimid oo rabaa inaan taabto 1 Luulyo xornimadii Soomaaliya 26 iyo 1 qof walba soo sheegay taariikhday lahayd iyo ahmiyaday dadka Soomaaliyeed u lahayd iyo wixii laga soo maray iyo hadda waxa uu ku sugan yahay. haddana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu sidiisii hore ku soo noqdo. maanta waxa ay baxay safafaala cusub, waji cusub, face cusub ay baxay. mar haddaana asood ajnabi ugu dhex jirin aan maanta maamul inta samaysanay aan isku raacnay oo maamulaas samay karna ay niyadda noo gashay. anigu waxaan qabaa inay walaalayaal raallida ko ah inaad u istaagtaan, rag iyo dumar in arrintaas ay istaagtaan oo aan soo dhaweyno. haddana waxaan leeyahay gobolada dhexe maanta maasha Allah tabaarakallah maadaama ahay gudoomiyaha labaad ee gobolada dhexe ee UK. aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. dawladdeena federaalkana u hambalyeynayna oo ugu horeeyo madaxweynaheena Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Mr. Jawaari, Prime Ministerkeena Cumar Cabdirashiid, xildhibaanadeena, wasiiradeena lama soo koobi karo. marka dadkan wada labeenta ah ee caawa ka soo qayb galay xafladda 1 July hambaliyo ayaan dhamaantiin idin leeyahay, rag iyo dumarba. xuskan aad xusaysiin maalintii xorriyadda haddaad tihiin jaalida UK, jaalida Soomaaliya ee UK joogo, si aad yacni waxaan dareemay labadan beri uma badnaa jirin UK inaad tihiin dad runtii waxaan iga dareemay isxilqaan wadani, dad isxilqaama inaad tihiin. ugu dambeyntii munaasabadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay heestii calansaarka ee Soomaaliya Tooso. Yusuf Garabay, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.